waa maalin cusub ayna u bilaabanayso nolol ka micno iyo waxtar badan tan maalmo ka hor ay u soo joogeen labadan dhalinyaro midba kan kale sheekadiisu waa ay ka xanuun badan tahay waxayna u soo joogeen dil dhac iyo jirdil waana shakhsiyaadka kaliya ee ku sheegi kara dhibaatada tahriibku leeyahay si aad uga baaqsato maalin kasta rurtuna la garaac jiray waxaan la weydiin jiray lacagaha bixiya qofkii haystay qof aan awoodinba sanadkii 2016 bilowgiisa ayuu ka baxay wadanka si uu u gaaro qaaradda Yurub isagoo aaminsanaa inuu helayo mustaqbal wanaagsan laakiin runtu taasi waa ay ka duwaneed waxa uu u gacan galay koox ka ganacsata tahriibayaasha halkaasi oo lacag ka badan $10,000 oo qoyskiisa si silac ah ay ku heleen looga qaatay marka jirdilku waxa weeye qofka bilaadanka marka intii lagu jiifiyo dharka laga siibo oo biyo lagu shubo ayaa lagu garaacaya si maxaan kaga leeyahay mid laba magaf waxay isticmaalaan maskaxiyada dadka aan isticmaalaan sidoo qofka bilaadanka aan u cararinba waxay ka garaacaan lagu haya dhabarka laga garaacaaba qofka bilaadanka adduunka waxa uu dana waa gaajo qofka hadii hal time wax uu siiyo awoodii aad ku dagaalami lahayd jirkaaga dhan waa daciifaya ma dagaalami kartid xitaa cabdikariin oo hargeysa ka safray 2015 sheekadiisu waa mid aad u xanuun badan wuxuu goobjoog u ahaa saaxiibadiis oo hortiisa lagu dilay dumar ay wada safreen oo la kufsaday iyo isaga oo xitaa nabaro ay ka soo gaareen feeraha oo bir lagala dhacay intii wada hadalka lacag bixinta madax furashada ay socotay waxay noo geysteen dib iyo rafaad aan la soo koobi karin aniga maalmaha kamid waxa igu dhacday waan suuxay gabadh Allah u naxariistay gabadhaas hadda way dhimatay shil baabuur baan ku dhimatay oo maalin dhaweytay ka dhacay magaalada Bani Waliid gabadha Ilaahay u naxariistay kaafiya loo jiray gabadhaas ayaa adsawaan iska raacnay ayaa tiri war wiilkan iyo carabigan way taqaan war wiilka waxa loo qabto way ku qeylsay iyada intii horta dharbaaxa ku dhufteen ay dib u dhacday aniga waan maqlaya carabiga waan yaqaanas waan fahmaya way soo dul istaagay baastoladii korkayga inta ku cabaystay ayuu afkiisa baastoladii iga galiyay wallahi qasaman billah ilaahay baan ku dhaartay afka inta ay galiyay ayuu yiri khalihi yamuut ayuu 3 jeer ku celiyay 3 jeer ayuu ku celiyay waliba khalihi yamuut hadhintee dhaaf xaruntan waxa ay hoy u noqon doontaa 6 bil ee soo socota dhalinyarada Soomaaliyeed ee dib looga soo celinayo wadanka Liibiya kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan la kulmay kooxda halkan ka shaqeynaysa waxay isku dayaysaa inay dhibaatooyinkii maadooyinkii soo gaaray dhalinyaradan Soomaaliyeed ay ka meeraan iyagoo waliba la garab taagan adeegyo caafimaad waxbarasho iyo sidoo kale dawladda u balan qaaday inay fursado shaqo u abuuri doonto kani waa aabaha 6 caruur ah inkasta oo uusan isagu u gacan galin magafi haddana 12 sano oo uu Liibiya ku noolaa isaga iyo qoyskiisu waxa dhibaato gaarsiiyay koox burcad ah oo Tripoli ku sugan kuwaas oo xitaa isaga madaxa waxyeelo ka gaarsiiyay xaaskiisana ka qafaashay si madax furasho uu u bixiyo laba mara mid la igu dhuftay maskaxdan tan qori waa laga dhuftay oo afar meel ka jabsan tahay meeshaan arkaysid mideeda lamaad islaanteeda sidoo oo kale 5 bilood way xirneed oo hatta iyada dhabarka iyo xundurta wax ka gaareen منصر محمد عبدي Universal TV مقدشو